walaalayaal waxaynu ku dhex jirnaa bishii qiimaha badnayd ee fursadda ilaahay uu nasiye ahayd fadligeeda iyo wixii dheeraad ay leedahay bishaasi dhowr iyo 10 arrimood oo islaamku ku qiimeeyay baynu soo aragnay dib ugu noqon mayna laakiin fadligeedii iyo faa'iidadeedii iyo wixii ay la gaar ahayd ee 12 bilood kale kaga duwanayd soo aragnay maxayna la gudban weeyay ولكل مقام مقال هوس ولبا هذا البولي هذا ولا جوجا هذا الكوها بومي وتاجنا هاي فرصة عمرك waa fursado waxa lagu kala dheereeyana dadka cimrigoodu ku kala bataana waa sida dadku cimriga ay uga faa'iideystaan iyo ayaamaha soo mara qof cimrigiisu yar yahayna oo muddo yar adduunka joogayna acmaal badan buu dhigaa oo akoonka ilaahay wax badan buu ku shubaa akoonka aakhiro uu dhiganayo qof wax badan jirayna waa ka maran yahay waa ka casiya marka akoonkeena khayr kale intee oo dhinac baynu wax kaga soo shubaynaa midda oo horeysa waxa weeye as-siyaamu fi hada ash-shahr cibaadada aynu u taaganahay bishan kow waxa ka ah faral ah soomka hadaad oran lahayd oo baynu soomanahay dadku mi wada soomaya dadaan waaga soomkuba u baryin baaba jiraba kuwa qaadka isku yariyeen arkaysa meelaha dad xabadu ka dhacays marqaan baa la il daran yahay oo dadkii habeen iyo maalinba waa la qamxaya waa la qaylaya dad muruq iyo kuusan oo rag iyo dumar balo xoogan ayaan uba jeedinba bisha ramadaan aanay u bilaninba waana ubadkeeni asxaabteeni ehelkeeni idan marka cidda baraarujin lahayd wuxuu sheegi lahayd inay soo barbar taagaan u diyaar garoobay lahayd waa inaga kawaanaad cidda kelmad ku leedahay ama aad ka mas'uul tahay marka aan cudurdaar lahayn waa inaad kula xisaabtantaa soomka oo aad baraarujisaa oo aad ku daba gashaa xilbaa kaa saaran nabiyullaahi maxamed sallallahu alayhi wasallam qiimaha cibaadadana ay leedahay ayuu aad inoogu baraarujiyay wuxuu kullu amal ibn aadam lahu alhasanatu bi'ashri amthalaha ila 700 ضعف qofku amalka uu sameeyo dhan isaga leh 10 jeer baana ilaahay u laablaabaa laakiin ilaahay xadiis al-qudsi waxa uu nabiga ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam soomku inuu gaar yahay soomku waa gooni illa siyaam fa innahu li wa ana ajzi bihi ba ilaahay u leeyahay soomka ana ka abaal marinaya qof ana leh cibaadado dhan ilaahay isaga leh oo isaga ina leh ya waxaynu sheeganaba si gaar ah loo calaamadiyay waxay sheegaysaa cibaadadani inay wax gaar leedahay waxa uu ku sii sababeeyay marka xadiidku yatruku shahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli qofku wuxuu iska daynayaa shahwadiis iyo cunadiis iyo cabidiis ma hiya shahwadu waa maxay waa rabitaanka qofka rabitaanada xaaraanta ah way kala duduwayn waa rabitaanka hamada ee xaaskii uu iska daayay rabitaanka araga wixii xumaaya daawan lahaa uu iska daayay rabitaanka dhagaha wixii xumaaya uu dhageysan lahaa uu iska daayay iyo rabitaanka hadalka wixii xumaaya carabkiisa yaafkiisu doonayay kullu hadi min ash-shahawaat shahawaadka kamita iyo rabitaanada aniga daraaday buu daayay baa ilaahay u leeyahay subhanahu wa ta'ala wuxuu markaa ilaahay ku abaal mariyay inuu qofkaas udgoonaado oo uu macaanaado macaanku waxa sheegaya sacaadada waa labada farxadood uu sheegayo nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu afurayo markuu ilaahay la kulmo mar hadaad qof saciida tahay sacaado la wad macaanti udgoonkana waa ka nabigu sheegay wala khalufu fami saa'imi adyab 'inda Allah min riih al-misk idan cibaadada iyada waxa u horeeyeen u taaganahay waxa weeyeen soomka akoonka khayr kale faralka ku soo shubno waxa kale aynu ka helaynaa waxa la wixii aynu la rooraynayno ilaahay bishan inaga reebay dambiha man saama ramadaana iimaana wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi qofka bishan ramadaan sooma isagoo rumaysan wuxuu ilaahay u ballan qaaday ilaahayna abaal kaga doonaya dambiga hore laga dhaafaa dambiga horena waa wixii 12 bilood aynu soo booshaaqaynayno soo sameeynay ilaahay baa inaga dhaafaya noocyadii kala duwanaayo lahaa
idan waxa halkaa aynu ka arkayna maalinka aynu soomannahay yuu la mid noqonin maalmaheenii kale laxa jeclo gaar ah inaga hayso waxaynu akoonka khayr kale dhinac kale kaga soo shubaynaa thawaabkii aynu ilaahay ku weydiisanaynay sarajooggeena habeenkii alqiyaam man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi dembi dhaaf baa dhinacaana ka soo arooroo ka yimi markaad habeenkii isu taagto cibaado taraawiixdii witrigii salaatuleylkii cibaadada aynu isu taagaynaynu wakhtiga habeenkii ku camiraynana iyadana dhinacaasaynu kaga soo shubaynaa waa arrinta labaad weeye ilaahayna awliyadiisa saasuu ku ammaanay awliyadii jannada galay ayuu ka warbixiyey waxay jannada ku helaan wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaatabahum اljaahiluuna qaaluu salaama waaladiina yabiituuna lirabbihim sujadan waqiyaama u fiirso caalamkaasay ku casuuman yihiin dambe oo cibaadu araxmaan maxay ku heleen jannadaas may ahayn dad kibra may ahayn dad bilaa macno ku nool may ahayn dad iska ciyaaree oo habeenkiiba ilaahay u cibaadaysan jireen habeenkii waagu wuxuu u baryi jiray iyagoo cibaado u taagan buu ilaahay waxaasay soo sahay qaateenay halkan ku heleen saxaabiga la yidhaa saa'ib ibnu yaziid radia allaahu canhu waxa uu leeyahay kaana alqaari'u yaqra'u bilmi'iin يعني المئات من الآيات وكنا نعتمد على العشي من طول القيام وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر صحابة يستلف كي صالحين تمركوا ورمية وحولية وحلقوا عبادة السنجر بقلال آيات الأخير روحها بقلال مركا لدالنا وشا لعسكن شري كلكو قفكو دالو واقو مركو صورنا وهذا سحور تلقانا ووالا قبحي شري صلاة ciyaar ma ahayn wax la daawanaya ma ahayn soo jeed ma ahayn qaylaad ma ahayn laakiin ilaahay baa la hortaagan yahay subxaanahu wa tacaala aayadihiisana waa la akhriyaya anteenada addoomuhuna isagay ku xidhan tahay oo si toosa ula faqayaan marka arrintaasina aad iyo aad bay muhiim u tahay taraawiixda qofkii haleela masjidku ku tukanaya salaatuleylkii iyo cibaadadii habeenkiina qofku caa'iladiisa iyo qoyskiisa intuu kiciyo ayaa ay ku tukan doonaan qur-aanka kariimka ah wixii ay ka yaqaanaan iyo salaada intay karaan iyadoo midhkii witriga loo dambaysiinayo qofkii xataa aan dusha ka hayn kitaabka uu ka akhri karaa dhinac kale waxaynu akoonka kaga soo shubaynaa sadaqada iyo gacan furnaanta inagoo kaga dayanayna qaa'idkeennii weynaa nabiga calayhi salaatu wassalaam kaana rasuulullaahi ajwada annaasi bilkhayr wa kaana ajwada maa yakuunu fii ramadaana xiina yalqaahu jibriil dadka uu ugu deeq badnaa bay leeyihiin asxaab rasuulku ugu deeq badnaa weliba marka malaga caalamka kore ka yimi uu nebiga la kulmayana gacantiisu way sii furnaan jirtay deeqduna way sii kala daran tahay waxaa kow ka idcaamu dacaam inaan laynagu dhex gaajoonin oo dhaqasha horta ha joogtee dhuuniga waa inaan la waayay oo dadkii soomanaa iyo dadka fuqarada ah waa inay cunadu noqotaa mid iska badan oo meel walba laga heli karo ilaahay baa sidaa ku ammaanay awliyadii jannada gala wuxuu yidhi wayudcimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira markay ifkii joogeen waxa la cunaabay bixin jireen iyo quudka iyagoo weliba jecel miskiin bay siinayaanoo agoon bay siinayaanoo qofkii maxbuuska ahaa ee gaalada laga soo qabtay gaajo kumay dili jireen isagana dhuunigay siin jireen innamaa nudcimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura waxay odhan jireen waxaanu idin siinayno waxba idinkagama doonayno ilaahay wejigiisiiyo daraaddii baanu ula jeednay macnaa deeqda waxaa u wehelinaysay daacadnimo dad daacada bay ahaayeen innaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamtariira aakhirana waa ka cabsanayna maalinkaa qiyaamahoo la sheegay inuu adag yahay kaana inaanu ka nabadgallo kulaylkiisa iyo dhibkiisaanu doonaynaa ilaahayna markaa waxay ka baqayeenna wuu ka badbaadiyey waxay ku yididiilanayeenna wuu siiyey fawaqaahum allahu shara dalika alyowmi walaqaahum nadratan wa suruura farxad iyo iftiin baa ilaahay uu ku abaalmariyey salafuna saalix waxay ku dadaali jireen bisha in wax la wada cuno oo aan la kala cunin
sidee nagu yaro badan geed weyn in la soo xidho masaakiintuna meelaha warwareegaan banaanka cunada loo soo wada saari jiray afka afurka la wada saari jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa la weydiiyay ayu islaam khayr amalada islaamka ee noo yaaleen qabanayna maxaa u wanaagsan maxaa u khayr badan marka rasuulku waxa uu tudcimu ta'am wa tuqri'u salaama ala man arafta wa man lam ta'rif dadkoo tacaamka siiso rooniga iyo wixii la cunay iyo wixii la cabay cunadii oo dadka siiso iyo adigoo aan u kala axanin dadka qofka garanaysa iyo ka kala cidii meel kaaga soo baxda salaama imaam shaafici wuxuu leeyahay رحمه الله أحب للرجل زيادة بالجود في شهر رمضان ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه لا مصالحهم ولتشاغل كثير منهم فيه بالعبادة عن مكاسبه صدح الرموت درادود إن داغض الله بحية بشهر رمضان بانتدك آد ولدنين ينودر دارنا يا أبو لي إمام كاوين صاحب المذهب محمد بن إدريس الشافعي إن داغض الله بدأيين نقول كقضينا ينهرت رسولك baahiduna way iska badan tahay maalmaha dadka baahidu way ku badantay qaar koodna shaqooyinkii baa ka xidhmay wala siyama fi hadhihi al-ayyam ayamaha la waynu arkaynaa busaaradiiba badatay markii baqii cudurkaasi yimi marka idcaamu ta'am arintaasi aad bay muhiim u tahay dadka ilaahay wax siiya waxaya raashinka qayriin qaybiyaan ku qoyana qaybiyaan waliba hilibka ina u fiirsateen mooyaane fuqarada qaybaan hilibba helin baryahan wasladii halkay maraysa inta Sacuudiga iyo Arabiya ay ka maraysaa halkeenna ka maraysa xoolo waynu haysanaa laakiin waa qaali dad badan baa markaa fuqaradii hilibkiiba goyn la maxay ku yeelaysaa inaad awr $400 soo iibiso oo 100 wasladood ka dhigto 100 qoysiiso waxaad kari karayso ama laba qof ay isku kaashataan dabeetana dadka fuqaradii iyo jaarka ah marka wiig la joogo bishii 2 jeer xoolo loo qalo hilib la siiyo arinta aad baynu adkaynaynaa dadka maadadii borotiinka qaar baan hayninba nafaqada raw dhimanaya waxa iyaduna aad u sii muhiima taftiiru saayimiin dadka sooman in la afuriyo qodobkii saddexaad ee akoonka khayrka lagu soo shubayay ee lagu biirinayo lagu badinayay baynu wadnaa fuqaradii waxba la siinayaa dadkii baahnaa saayna horaba u soo xusnay masaakiintii agoomihii waxa si gaar ah iyagana loo sii eeganaya qofka sooman qofkii soomana isaga siyaado wax dheeraada laga helaya nabiga kaleey salaatu wasalaam hadii saxiixa waxa uu ku yiri man fadara saa'iman kana lahu mithlu ajri ghayra annahu la yunqasu min ajri as-saa'imi shay qofka qof sooman afuriya qof sooman ayuu la raadsado afuriye maaha isagu inuu raadsanayo wax afuriya dadka qaar kood inaga laga yaabo inay haystaan baa waxay raadsanayaan cid afurisa adigu ku dadaal inaad koob sharaaba laba xabo oo timira sambuusiya wixii lagu afuri jiray dadku caado u lahaayeen dadku waxa ay jecel inaad kaga qayb qaadato ka gaarsiisay inaad afuriso taa ku dadaal mar haddii adiga helaysa inaad cid wax siiso qofka qof sooman afuriya wuxuu helayaa ka sooman ajrigu hela in la egbu ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahayna kama naaqusayo kama yaraynayo ilaahay deeqdiisu way ballaaranto waa kariim kan sooman intuu si in leeg baa adigana ku siinaya marka maalin walba waxaad ku xisaabtantaa intee qof baa ku soomay ana soomkoodi in leeg adiguna aad helaysa oo aad furisaa arintaasina aad bay muhiim u tahay waa idcaamu tacaamki qayb kamida dadka wax la siinayo ma aha inay yihiin fuqaro oo qura ma aha inay yihiin dad sooman oo qura dadka asxaabtii ehelka iyagana la casuumi karaa oo karamka iyo deeqdu waxay ka mid tahay in hadiyadaha la isasiiyo la iscasuumo iyaduna fadli bay sii leedahay bishan ila maxabada iyo jacaylka sii kordhaya waxa afraad oo iyaduna aynu akoonka dhinaca khayrka ka soo shubayna al-ijtihaad fi qiraa'ati al-qur'aan al-kariim ilaahay kalaamkiisa inaynu ku noolaano inuu la noolaano oo inuu ilaahay la faqno inuu dhageysano subxaanahu wa ta'ala marka bishan aad bay ayuu nabigu akhri jiray quraanka waliba malakul jibriil baa u iman jiray malagii muallimka waxa ilaahay ugu soo dhiibay baa la akhri jiray ويدارس معه أو لا سبعينيا أصحابنا رضوان الله عليهم قرآن أخرسكو وكسي بالضاينتي هوري
oo waxa ay tilmaamaan dadkii la saaxiib ahaa Uthman ibn Affan inuu hal mar dhameyn jiray Quraanka Kariimka ah maalin walba haddii adiga kugu adagtay bishan aad mar dhamayso adigoo Quraanka akhriyo karo yaqaana maalin walba hal mar buu dhameyn jiray ha qariibsan inoo ha oranin siday u suuroobaysa qaarkood kaana bacdu salaf yakhtimu fi qiyaam ramadaan fi kulli marrati qaarna habeenkiiba waxay dhameyn jireen ramadaantiiba mar dhameyn jireen qayb kale usbuuci qayb kale 10 cish marka haddii aad tidhaahdo sawkii nabigu calayhi salaatu wasalaam quraanka muu fahmin 3 cisho ka yar qofka akhriya sidee bay noqonaysaa culimadu waxay kaga jawaabeen sida uu leeyahay caalimka ibn Rajab al-Hanbali waa markuu qofku joogto ka dhigayo laakiin markuu joogo waqti fadli badan sida ramadaan oo kale ama baytullah al-haram oo kale wuu kordhinayaa taasina way ka sugantay saxaabada wax la yaab lana maaha qofku markuu maahir ku yahay quraanka ee quraanku sida faatixada adiga uu kugu degan isaga ugu dego wuxuu kari karaa 15 daqiiqo ama 20 daqiiqo inuu ku akhriyo juska adigu aad saacad la rafanayso marka 30kii jus ku dhufato 20 daqiiqo 9 saacadood iyo xoogaa weey de qofku 24 saacadood buu haysta hadduu 9 quraankii akhriyo 3 jeer oo min 3 saacadood 30kii uu dhameeyay ka dhiganta qofkii Ilaahay u sakhiray subhanahu wa ta'ala mutamakinka ah ee quraanka si adag u hayay taasina wuxuu sheegaysaa inay de shaqooyinkii soo yareynayeen oo inay khayrkan ka fara qabsadaan ayaamahan qaaliga bay isku day jireen salafuna saalix waxa lagu xisaabtamayaa cibaadada mar hadday sunno tahay qofba waa intuu kari karo cibaadooyinka dhinaca kale aynu kaga soo shubayna waxa kamid ah al-juluusu fil masjid hatta tadlu'a ash-shams inuu qofku masjidka iska fadhiyo ilaa intay qorraxdu soo baxayso qiibo weyn bay leedahay waa ramadaan iyo qeyrkiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam halka uu ku tukado salaada subax buu fadhiyay ilaa qorraxdu soo baxdo sidaas aanu dadka faray waxaanu tilmaamay inay u dhiganto xaj iyo umro dhammaystiran salaadii subax waa tukatay wardigii baad akhriday quraankii baad akhriday waxbadanimo uma dhaxeeyaba saacad iyo rubuc baa u dhaxeeya adaanka subaxa iyo qorraxdu intay soo baxayso de marka laga jaro intii subaxa la sugay ee laga jaro intii salaada subax la tukanay wax yar baaba soo harayaba 30 daqiiqo soo haray buu qofku jiskii akhriya wardigiina uu akhriya qorraxdiiba waxay gaadhayba halkii uu tukan lahaa qofku udxiyada waqtiga udxiyada tukan lahaa buu gaadhay udxiyadii buu markaa tukaday halkaas uu ku xajay oo uu ku umraystay isagoo isla meeshiisii fadhiya hadaad heli karaysa markaa masjidaan iska cilla ah oo aad ku khalaawayso waad samayn kartaa cibaadada waqtigan la yiri ururka yar dhib badanaya i'tikaafkiiba isaguna jiro qofka hela meel uu ku i'tikaafo i'tikaafkiina waa sunne umradii bisha ramadaan la umraysanayay marka ama waqtiga ay arimahani suura galaan way ay sahlanaadaan marka qofka inta soo arimood wada bishan gudaheeda iyo qofka intaaba aan u jeedin isku islaamna ah isku abtirsiimana ah isku deegaanna sida aakhira u tartamaya sida janno ugu soo wada xaadiraya ilaahay fadligiisu uu ballaaray subhanahu wa ta'ala laakiin waxaynu arkaynaa la kala dheere orodse maaha in la kala dheeraynayo adduunkiiba lagu kala tagay oo qofna halkan uu ka arqaalaya ka sii qaadanaya qofna isagoo iska gacmacad buu halka tagaya marka waxaynu baraarujinaynaa waxa aynu bishan ku qaadanayna inuu ku camiraynaa waa cibaadooyinka qiimaha badan ee waqtiga la lumiyo ma aha iyo adiga oo karaahiyeysta bishan iyo adiga oo gaajada ee ay ku damaqda maaha waxa soo dhan waxaynu ka hadlaynaa waxa weeyaan fawaa'idkii ruuxiga ahaa iyo cibaadadan sidii ay u kobcin lahayd qofka loo badsan lahaa faa'iidooyinka caafimaad ee soomku uu leeyahay marar badan baynu ka hadalay laakiin ta inoo muhiimka ah waxa weeye diinteena sidaynu u korinaynaa inuu u kobcinaynaa allah ina waafajiyo اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وأعمالنا كلها يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا القبول والتوبة والإخلاص اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك يا أرحم الراحمين اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ولايتنا وولاية جميع المسلمين في من خافك واتقاك
وحكم بكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون والسيء الأسقام.